bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan joognaa maanta masaajidka towfiiq islamic center oo ay ka dhacayso haddii la yidhaahdo lacag aruurin loo aruurinayo maash oo aan u istaagnay guddiga abaaraha soomaaliya abaaraha ka dhacayo maanta. haddii la yidhaahdo sheekh doctor cali saalax ayaa haddii la yidhaahdo fikirkiisa iyo siduu abaaraha saan isu caawini lahayn iyo sidaan isu garab istaagi lahayn iyo sidaan soomaalinimo ugu istaagi lahayn 6,200,000 oo qof ayaa u baahan gargaar degdeg ah. marka sheekh kusoo dhawow. bismillaah, alxamdulilah, wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina muxamed calayhi afdal asalaati wa asga tasliim. ama bacdu, hori horaanba mahad ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala. kadibna walaalaha agaasimay isxilqaamay hawshan yidhi ana laha qumayna, oo dadkeennii muslimiinta ahaa, soomaali ahaa, aanu wada dhalannay ayaa gaajo u li'anaya. naxnu lahaa inay yidhaahdaan aad bay ugu mahadsan yihiin, walilaahi alxamd. ikhwaanii, min naafilati alqowl in la soo celceliyo oo mar walbaba laga hadlo abaaraha maaha wax runtii nagu cusub maaha. maxaa yeelay maalmahan saad ula socoteenba akhbaartaad haysaan iyo waddanka saad ula xiriirtaan iyo baraha ay bulshadu ay ku xiriirto, meel walbaba muslim iyo gaal intuuba qayladhaan bay run ahaantii direen. adduunkana meel kastaad tagtid ama qof kasta oo war ku warramaayo ama wax kuu sheegay wuxuu ka hadlayaa soomaaliya dhibaatada ka jirta. cadadka walaalka uu sheegay iyo in ka badanba la soo xiganayo, iyo iyadoo ilbiriqs walbaba nafu ay go'ayso, xoolana ay nafuuq baxayaan, ay akhbaartu noo soo tabinaysaa, wararkuna aad bay usoo tarayaan. run ahaantii dadka sidaa ah walaalaheena muslimiinta ah, ilaahay subxaana wa tacaala say culammada waa dhahaan waxba uma waayin. ilaahay subxaana wa tacala waxba uma waayin, oo ilaahay amtaarta ay raadinayaan iyo roobka la raadinayo iyo waxa la raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala uu siin karaa jalla wacala. waxba lama aha, laakiin innagaa laynagu imtixaanaya. haddaba haddii sadaqa waxa ay tahay iyo macnaha ay ku fadhido maanta ay muuqan karta, wa fii kulli kabadin ratbin sadaqa, beer kasta oo qoyan wixii lagu bixiya waa sadaqa. sadaqada aad ogtihiin laydinkaga sheekayn maayo, iyadaa taqii masaarica suu. berri aday kugu iman kartaa, adaa qixi kara. haysdihii maanta waxaad joogtaa dhul nabad iyo wax walba ay ka jiraan, adaa beri qixi kara, aday kugu iman kartaa. ikhwaani, baaraka allahu fiikum. waxaa la rabaa xamlo iyo olole aad iyo aad u culus in aanu galno, gaar ahaan dadkeena norway degan, meel kastoon ka degannahay, gobol walbaba, daraf walba uu nin soomaaliya uu joogo, iyo adoo warka usii gudbina dadka kale ee walaalaheena muslimiinta nala damqanayo. ilan hadda xataa waxaabaa jira hay-aad aanba shaqaba ku lahayn islaan iyo muslim, haddana gurmanaya. waxaa la rabaa in xamlada iyada ah kolley waxa aan soo dhicin doonaay laga yaabo 3 iyo 5 qof inay runtii badbaado u noqoto, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala badal khayr qabo ina siiyo. waxaan rabnaa biidin illaahi subxaana wa tacaala idinka oo aad iyo aad ula shaqaynaya guddiga isxilqaamay, guddiga gargaarka gurmadka abaaraha, mas-uulka uu ka yahay amaba ay wata magaca hay-adda loo yaqaan alxanaano ama loo yaqaan xanaano. hay-addaas iyada ah iyo guddigeeda iyo dadka hawshan u qumaya dhammaan in lala shaqeeyo. innaga haddaan nahay dadkeena reer towfiiq, sida guddi ahaan iyo maamul ahaan iyo jaaliyad ahaan waxay naga mas-uula hay-adda xanaano hawshan hadda taagan. run ahaantii su-aalo fara badanoo dadku ay soo dirayaan, ay weydiinayaan halkeen wax ku dirna. dad fara badan xilqaamo ay jiraan. haddaba waxaan dhihi lahayn meesha hadda aan idiin tilmaamayna waa hay-adda iyada ah oo aan rabno inaad la shaqaysaan. dad fara badan baa jira oo hore wax u diray, dad si gaar u diray baa jira, maraakiis fara badan oo dirtay baa jirta. waxaasoo dhan waa la soconaa, laakiin waxaad ogaataa adigu shalay wax cuntay, maantana waa soo taagan tahay. kii berri baad ka fakaraysaa, mishaarkii soo dhacayd ka fakaraysaa. kan xagga joogana maradii uu xiran lahaa iska daay, wuxuu cuni lahaa, wuxuu cabbi lahaa, meeshuu seexan lahaa, meeshuu ku hoyin lahaa buu ka fakaraya. haddaad shalay $100 aad dirtay, $100 laga yaaba inay qof maalin raashin ay u noqotay, laakiin weli baahidu weli ay taagantay. ikhwaani, baaraka allah fiikum.
juhuud xoog badan oo runtii istaakulaysata iyo shaqo tira badan oo hawsha aanu gelina biidn illahi subxaana wa tacaala ummadda aanu ku badbaadin karnaa nabiga sala allahu alayh wasalam nuu noo sheegay man faraja can mu'minin kurba faraja allahu canhu kurbata min kurba addunya walyowmi alaakhira qofkii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay nabiga sal alay wasalam qofkii qof mu'mina ka fayda kurbad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka faydi doonaa كرب الدنيا والآخرة تي الدنيا آخرة من نفس عن مؤمن كشيكين من آيات حديثك وصورة صدق لو حيتهي لكن إخواني بارك الله فيكم وحيتاجن تا حالات آدي أدوادك حالات آدي أدوادك بيتاجن تهي وضدك اللي أنا يعني أنو جرمنو هديدت كأن جارهان نروي دجنا رنتي خير كولا نقول يقين مساجد على الدسي markii hay-ada loo gurmanay iyaga u gurmanay markii dad dhibaato la soo sheegay way ordaan runtii ayaadii hadi al-ayadi al-baydawaat reer Norway lagu yaqaan wal jazakum Allahu khayran wa juhdi aad hore u qabateen ilaahi subhanahu wa ta'ala fi kitab rabbi la yadhil wa la yansa wala lahan kala muslimiinta dunida daafaheeda kala degan iyo meel kala duwan degan iyaguna juhud far badan bay bixiyeen juhudda waxa la rabaa in maanta la gurmado nacam waxa jiri hadda ka hor Soomaali way soo martay abaaro way soo martay xaalada adag baa ku yimid laakiin barahan maanta dadka ku xiran ma jirin wacyigan maanu jirin qarashka iyo xoolaha maanta aan haysan maanu jirin walidaalika in yaro duwalka nagu dhow noo soo tuuran bay dadku cuni jireen inta kale way laan jireen laakiin maanta wallahi alxamd inagoo nool oo ilaahay hanti gacanteena u galiyay inagoo nool oo dibad iyo dalba camirna inagoo nool maanta xoolo aan haysano يعني waxaan u maleynayaa in ay tahay waqtigii ilaahay subhanahu wa ta'ala aan diinkiisa iyo makhluuqaadkiisa u gargaari lahayn kullama nansur Allah jalla wa ala diinahu wa khalqahana ilaahay subhanahu wa ta'ala nusigiisu imanay in tansur Allah yansurkum wa jazakum Allahu khayran waxaan leeyahay salafan اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا ومال جمعة وصلاة جمعة تكني وحكست أن بحنه كل وحي ترين مركا ملها كلية إلهي سبحانه وتعالى ودواننا لكن ذاتك هم إلهي سبحانه وتعالى بيسوغن أسأل الله جل وعلا أن يغيثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه نرجع وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سيدا شيخ inoo sheegay kulli ummadda muslimka berrito 25 weeye waa maalinkan caawa walaalka caawa adeerka caawa abtiga aynu waa maalinkan waa midnimada maanta waxaad moodaa in abaartani ay dadka reer Norway aynu bixinay midnimada dadka reer Norway midnimada dadka reer Norway waa abaar laakiin way ina midaysay oo waxayna ka dhigtay hal qof oo u taagan inuu hal qof oo Soomaaliya jooga oo dhibaataysan oo abaar hayso oo xoolihii ka dhamaadeen oo ay ka dhamaadeen maartay iyagii hadda dhimanayaan inuu wax siino marka waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa ummadda Soomaaliyeed ee Norway degan meelaha ka degantiin oo dhan iyo qof walba qof kala gaarsiin kara maalinta berita 25 waa maalinta guud ee aynu ururino lacagta وما أنت جود أي نستاجنه قف ولا بس هذا الشيء خوشة جاي علماء الشيء جاي بالله عليك كنت هلقل إن اللبع عنو شوش اللبع عنو عنتد هل من هذا ولا لها وجود يقين الله يسكي هو هل عنو ولا لها وجود يق لبع عننا شوش وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.